wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland oo dhawaan la magacaabay ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa. waa kan Faysal Maxamed Aadan Fiifa oo warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. waxaa xilli hore oo saankaa si weyn loogu soo dhaweeyay halkan oo agagida diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaana Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Somaliland oo mudooyinkii laga soo gudbay socdaal safar ah oo u khaasa ugu maqnaa dalka dibadiisa intii ka horeysay magacaabidiisa waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ka socday baarlamaanka mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye aqooyahan madax dhaqameed siyaasiyiin iyo sidoo kale dadweyne tiro badan kuwaas oo ku qaabilay halkan waa barxadda weyn ee hore ee agagida diyaaradaha Cigaal. waxaana halkaasi ka hadlaysa markaana mahadcelin iyo soo dhaweyn u sameeyay wasiirka xubno ka mid ah golaha wasiirada way qayb ka hayeen wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka waxbarashada cadaaladda wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xubno ka mid ah madax dhaqameedka siyaasiyiin kale kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah uga markhaati kacay doorka laxaad kale ee siyaasadda Somaliland uu ku leeyahay Siciid Sulub Maxamed oo xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin isla markaana mudooyinkii laga soo gudbay ka hor intaan xilkan loo magacaabin ka mid ahaa siyaasiyiinta ku abtirsada xisbiga mucaaradka wadani. wasiir soo dhawow waanu ku leenahay anigoo ku hadlaya afka dhaqanka oo soo dhaweynaa wasiir gacmo furan waxa saaka cadaatay in Siciid Sulub yahay xiddi ka muuqda Somaliland oo dhan muddo 9 sano oo saaxadda ka maqnaa aan mar qura magaciisu inuu sii kordhay mooyaan isbedelinin waxaan uga mahad celinayaa ummadda faraha badan ee soo dhaweynaysa. wasiir waxaan ku leenahay welcome to Hargeysa xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ku soo dhawow. maanta isku soo baxay inuu soo dhaweyno wasiir Siciid Sulub oo ah wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga aad baan u soo dhaweynaynaa. ugu horeyn wasiir waxaanu leenahay soo dhawow welcome ku soo dhawow dalkaagii. Siciid Sulub Maxamed oo aan nagu cusbeenaynu leenahay roog cadaagii soo rogaal celi. waxa halkan airportka ka muuqda soo dhaweynta wasiirka sida aan arkaysaanba bulshada Somaliland sida ay uga hortimi ee ay u soo dhaweysay aad baan uga mahad celin. meesha waxaan isku nimsaaka inaynu soo dhaweyno wasiirka cusub ee xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed. Siciid Sulub Maxamed wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Somaliland oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay markaana ka daran eli xilka madaxweynuhu u magacaabay sida ay ula muuqato waxaanu dhanka kale u duceeyay in Ilaahay xanuunka ka qaado Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo kamid ah madax dhaqameedka waaweyn ee dalka ee si weyn nabadda uga shaqeeya oo xilligan xaaladiisa caafimaad lagula tacaalaya dalka Itoobiya. deenu kala hadhin intuba way ku mahadsan yihiin waana isku leenahay oo midba ninba imaka daawogtiin oo anigu xisbigan la magacaabay iyo talada hayaa soo kulmiye maaha anigu kulmiye miyaan ahaa anigu wadani baan ahaa soo garan maasaan aan ahaade madaxweynihii ii magacaabay kursiga maanta waxaan u gartay sida nin walba calooshiisa ku jirto reer Somaliland midayntii dadka inuu bilaabay horena u waday makana bilaabo si xoojinayo aniguna aan ka mid ahay midaynta waxaan ku aqbalayna tahay inaan dalka cidina iga lahayn la Muuse wala khayro ayay tahay inaan waxaan kordhin kordhiyo wixii dhimanay aan sheegi karana sheego ilaahayna iguma qaban waxa wax ka hooseeyo dadka waxaan ku oran jiray war aniga hadii la yeero rag badan baa halkan jooga ama oo idinka la wasiir baa laga dhigayaa wixii anigu aan tala moodo aan badan aan moodo dawladda waan u sheegayaa dawladdu markaa hadii ay been doonayso aan tala runa doonayna anigu isu iman mayno hadday run doonaysana waanu isnaqaanaa wax oran doontaa war barkaale wuxuu kordhi markaa taasuna waa taa inta waxay raacdaa ilaahay waxaan ka baryayaa in dalka iyo nabadda iyo dadnimadaba ilaahay inoo aslixiyo ilaahay waxaan ka baryayaa in nabadda maalin jimcaaynu joognaaye ilaahay inoo aslaaxiyo oo nabadda iyo midnimada aynu nin noqono haddaynu nin noqon weyno waxaa la yidhi rag isku filaaday rag iskama celiyaan ma iskuma filaadaane inay rag iska celin kari mayno geedkaana gaadhi mayno
taa igu ogaatanna waxa weeye mas-uuliyadda lay dhiibay waan garanayaa waa culays waa dhib qaar horaan soo maray waxa weeyaan waxa ka sii weyn dalka aad wax ka noqonaysaa muxuu yahay geedkaa hoostiisa idinka garan mayso markaa xuduudda ka baxdo in dalkaa wax laga dhigo oo sida dadka laga dhigo oo sida dadka loo bartaa la doonaya ma aha in halkan timaa la isku haysto marka waxaan leeyahay taas waa taa waxaanan aad uga xumahay inkastuu ladan yahay xanuunkii ku soo booday suldaan maxamed suldaan xirsi oo ahaa haliyey somalilan oo salaadiinta qaaliga ka mid ahaa ilaahay caafimaad ha siiyo waynu ducaynaynaa markaan ima ka soo duulayna Addis Ababa waxaan u malaynayaa 2 saacadood bar baanu joognay warkii naga soo gaaray dhakhtarkii wuxuu ahaa koomadii uu ka soo baxay waa ducadeennii iyo ducadaana u laban laaba oo ha ka daynina Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga Somali Cable Hargeysa.